waxa xubaala in dad badan ay ka walwalaan sida ay u heli lahaayeen riski ka badan ama ku filan taasi oo qofka ka qaada farxadda degnaanshaha nololeed rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa inoo sheegay suurad hadaynu aqrino inoo kordhinaysa riqiga iyo farxadda nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka akhriya habeen kasta idha waqa'ati waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhiba ama suuratul waaqi'a ma haleelo faqri waligi qofka akhriya suurada laa uqsim ama suuratul qiyaama ilaahay waxa uu la kulmayaa maalinta yawmul qiyaama isagoo sida dayaxa wajigiisa u iftiimayo Anas bin Malik radiyallahu anhu ayaa waxa laga soo wariyay inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo wariyay bara dumarkiina suuratul waaqi'a waa suurada taajirnimada sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga soo wariyay suuratul waaqi'a waa suurada taajirnimada ee akhriya oo bara caruurtiina haddaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu dardaarmay inaan habeen walba akhrino suuratul waaqi'a axaadiistuna waxay na tusinayaan fadliga ay leedahay suuratul waaqi'a iyo fadliga iyo faa'iidada ay ku jirto akhristeeda